السلام عليكم. uurka waa shayga keena in bil'aadamku tarmaan kobac dadweyne iyo mid deegaanba. sida caadiga ah ama loo bartay waa in gabadhu uur qaadaa ka gadaal qaangaarnimadeeda, balse waxaa jira waqtiyo naadir ah oo la arko waxyaabo aan hore loo arkin. sababtuna waa awoodda Alle iyo siduu wax kasta u awoodo inaad fahantid kuuna noqoto cimri qaadasho. muuqaalkeenna maanta ayaan kugula wadaagi doonaa gabadhii ugu da'yarayd ee uur qaada, dhashana si caadi ah. ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horraysay janaalka aadna danaynayso warbixinnada caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, sabskraibna saar janalka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. aan bilaabo fiidiyowga. Leena Madiina ayaa noqotay qofkii ugu yaraa ee loo diiwaangeliyo hooyadii ugu yarayd caalamka ka gadaal markii lagu fooliyey ama ay ku dhashay da'da 5 sano jirka. waa macquul inay jiraan dad kale xilligaasi ka hor, balse sida dhiganayaasha aan arkay ku qoran, Leena Madiina ayaa u diiwaan gashan hooyada ugu da'da yar caalamka. dhallaanka iyo maamada waxay ka soo jeedaan waddanka Beeruu. 2 kiilo iyo bar ayuu ahaa miisaanka cunugan yar xilligii uu dhalanayay. waxa uuna ku dhashay qaab qalliin ah, yacni C-section. in la qalo maamadan yar ayaa waxaa keenay sinaha ama kafka hooyada oo yaraaday. sidaas ayayna dhaqaatiirta waddankaasi ku go'aansadeen in qalliinkaasi lagu sameeyo. xilliga ay dhacday qisadan ayaa waxay ahayd waqti aad u fog marka maanta loo fiiriyo, maxaa yeelay waa qarni ku dhowaad. sannadku waxa uu ahaa 1939kii miilaadiga. sida ku qornayd diiwaanka bukaannada ee isbitaalkaas, waraysigii laga qaaday gabadha ayaa waxaa lagu sheegay bilowgii calaamadaheeda qaangaarka inay ku bilowdeen xilli hore, sida caadada oo ku dhacday 8 bilood ee ugu horraysay nolosheeda. horaadaheeda ama qaybta sare ee jirkeeda ayaa dhammaystirmay markii ay jirtay 4 sano oo keliya. caafimaad ahaan, xaaladdaani Leena waxaa loo yaqaannaa afka qalaad precocious puberty ama qaangaarnimada qayru caadiga ah. ugu horrayn, dadku ma rumaysan uurka gabadha oo waxay u haysteen dhalanteed iyo been abuur inuu yahay waxa ay sheegeen dhaqaatiirtu. balse sawirrada ama raajada laga qaaday lafaha cunugga markaas uurka ku jiray iyo xubnaha hooyada ayaa xaqiijiyey in gabadhu ay si dhammaystiran u qaangaartay, uurna u qaaday. cunugga ayaa loo bixiyey Gerardo, waxa uuna noqday xilligaasi mid caafimaad qaba. 10 sano jirkiisii ayaa loo aqoonsaday hooyanimadeeda sida sharciga waddankaasi uu ahaa. waxa uuna ku geeriyooday 40 sano markuu jiray ka gadaal markii uu dhuuxa ka jiraday. aabbaha cunuggaasi yar ayaan la aqoonsan weli, maadaama ay gaalo ahaayeen. waxaa shaki inuu kufsaday ah laga qaaday aabbaha Leena, laakiin ugu dambayn waa la sii daayey kadib markii caddayn lagu waayey. Leena Madiina weli waa nooshahay oo waa 87 sano jir, mana shaacin aabbaha cunuggeeda
sida la isku raacayna waa inaysan garanayn qofka u yeelay uurka maadaama ay da'deedu ahayd mid aad u yar. ugu dambayn, adduunku waa la yaab iyo mid wax ku qaadasho leh. taxaddarka ilmaha waa muhiim. wax kasta oo dhaca haddana aad maqashid waa inaad ka qaadataa waayo aragnimo ku dhaxalsiisa feejignaan iyo taxaddar. ilmuhu inta ay yar yihiin, waalidku xaaladdooda ha la socdaan, hana lala saaxiibo ilmaha. waa sida ugu fiican ee lagu ilaalin karo carruurta. muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar. hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato. commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. fiidiyowga inoo xiga insha Allah.